KNN koonkan aadmiga jooga qof kasta kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waane markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan si aad u hesho xubinta kalamaan ee ka baxda maalin kasta radio kulmiye fadlan subscribe saar janalkan KNN hele nindar ku jira darur ma arke elen halay rob kibada aye warmaday isaaqow xaalkaagu wuxuu marayaa markaad oran jirteen madara kooy ilaa korkeena ka weel madaafiicda la isku garaacaye xalay roob madi in qarax baa dhacay saaq nindar ku jira daryaan ma maqle ileen saakay waaba la isgalaaye runta waahe wargoobtii la isku gala miyaa joogtay warnimada war ma haysiine wax badan baad maqasheen waa la fashiliyey waa laga hortegey waa cambaaraynaynaa saakaas si dhaba loo fashiliyey oo looga hortegey war heedha xarfaantii bac ka sii maanta juk ka sii miyay noqdeen war miyaana la galay iyo waanu gallay ayuunbaa ku jiraysaan weligiin warnimada waxaa la yidhi mar haddii dagaal dhaco qolaa laga adkaadaaye fashilaadda qaraxii ku timid waa ku diirsaday ciidamada ammaantooda iyo qaylada ay siiya intaasan ku soo koobay ayaanan sii badin war waxa ka hortagay gaariga qaraxa sida waa ciida bac ka siina gurmid ay ku yimideen war wax marana tahay ciida soo ciidan kuma dhigan oo difaaca hore maaha kadibna ciidanku gurmid ugu imaan war nimanka qaar maanta masaajid galay oo ka adimidabay war muwaadin ma mikrofon ku dhigeen war masaajidka hubiyay la galeen kadibna ayagii kabahoodiba kurka laga gooyay war naga tag haday shabaab masaajid dadku dil jireen maanta ayaga lagu dilay ala kulli xaal war iyo dhamaantii maanta dad badan ayaa dhintay dad badan waa dhaawacmeen laakiin sida ay rabeen ilaahay kama dhigin war hararkan u jeeday nin soo carro waqta warninka gaariga la qorxoonaaday inuu gorgoriyo ayuuna rabay kadibna gowda ayuu ku war helay war gaarigii general Google hore u sheegay iyo ka maanta lama kala aqoon war general anta virus ayaantan ma arage xagee buu aaday war major general Microsoft ayaa duqeeyay warnimada waxaan la yaabanahay ciidamada dawladdu say u joogeen miyay keenan hadda la isma qarxi karo soo caburin ma ahan in qofka rabitaankiisa lagu hor istaago hay'adaha xuquuqdaadana u doodahay mar hore soo ma diidin in la iscaburiyo dimuqraadiyadu sama qabta qofku wuxuu rabay in lagu hor istaago war dastuurku meelgaarka dhiga inuu qofku xur yahay war qofkii isdilaayo cid u diiday soo caburinaysa ma jirto laakiin waa keligii inuu meel cid la tago oo aan dad kala maran sababtoo ah xorriyadaadu waxay ku dhamaataa qofka kale xorriyadiisa haddaan ku fahmay ma waxaad ka wadaa duruufaha adduunka iyo haddaad nolosha diideen adinkoon dad kala maran dabaq ma iska tuurtaan war abwaan yamyam wuxuu hore u yidhi baalaleyda duushiya dabka hawtalhama gubadaf waxay u leedahay jinna doonad kama aha war abaa mustafa wuxuu hore u yidhi intii wax ogaata dila intii la ogaatay dila ogaalka laftiisa dila si aan waxba loo ogaan war shaabaxal ugu dambaysay waxay dileen 4 qof oo 3 ay ku eedeeyeen basaasnimo midna ay kufsi ku eedeeyeen waxayna ku dileen degmada Jamaama ee Jubbada Hoose toddobaadkii la soo dhaafana dadka ay dileen ee basaasnimada ay ku eedeeyeen waa 18 qof maanta ugu dambaysana deegaana Jawhar u dhow waxay ka afduubteen wiilal lagu arkay calanka Soomaaliya wardiyo inamada rimiye ilooban calankii madooba war qowduna calanka madooba hadaad rabtid ma hargeysa geysid warnimada waxaa la yiri basaas intaadan basaas dhiin buu basaas ku yira kuguna dila war nin barwaaqo heesaba marbay bala ku ciirtaaye ma balaaya idin dhiman war ma haysiine waxaan loo joogin inaad ku meeraysataane ra'iisul wasaare khayr maanta gaalkacyo ka gabi war wali wadankii galmudug mu jooga wasaaraha warkaan laga dhex gelin wuxuu yiri ra'iisul wasaaruhu gaalkacyo ay gargaaray golihii midnimaday gurigii aqoontaay goobtii ammaankaay hadda waxaan garawsaday gobolada dalkoo idin inaad gaada dheer tahay laba gudoonna leedahay wadaayay markan kooray ra'iisul wasaaraha gabaygaas alika afiye gaalka ay maduusi leeyay golihii waxbarashaday goobtii aqoontaay galii midnimaday golihii ammaankaay ninka daray lama gudoomiyin saare waana meelay golihii midnimada war walaas gobolaw ma ilaahay ku afiye
gaalka ay hobos gorashan ka dhimanta guriga allaaday inoo rahayti gaanki faas ku leeyahay ku hira war ra'iisul wasaare waxaan ka rabnaa markuu madaxweynaha marka tagay 3 gudoomiye leed hal gudoomiye u soo yeelay hadda gaalkacay waxaan ka rabnaa inuu hal gudoomiye u soo yeelo waranu ku dhuuyay waalidiina waxaan la yaabanahay gaalkacayo 2 gudoomiye leh ayaa rabtaan in Hargeysa Muqdisho ay hal madaxweyne yeelato dhacday xagee ka dhacday goobtaysa ka dhacday amaysa dhacday dhacdooyinkii sanadkan soo dhacday aan ku tirinahay dhageyso waxa laga boobsiyaa lagu daahine haweeney nin iska dhigi jirtay oo gaalkacyo lagu qabtay 4 gabdhood oo wiil ku kufsaday magaalada Hargeysa nin qarway oo dabaq iska soo tuuray Muqdisho nin isqarxin rabay oo jannadu aaminsan looga hor istaagay Gurceel nin gabar uu jeclaa ku sumeeyay hotel ku yaala magaalada Muqdisho mid kale oo gabar uu jeclaa wabiga ku dilay beledweyne madaxweyne taalada dhagaxtuur ku tilmaamay haliyay Soomaaliyeed wasiir ku tilmaamay Galmudug wadan kale imtixaan muddo 3 maalmood ah Facebook wareegay oo ardayda dib loogu soo celiyay wariye shaqada looga joojiyay comment uu Facebook ka dhibtay dawladda Soomaaliya oo xiriirka u jirtay dal aysan wali xiriir la yeelan islaan saacado kooban uma lahayd oo kubad ku ciyaartay beledweyne iyo shabaab oo ku eedeeyay dawladda Soomaaliya inay caburinayso oo ay u diiday inay isqarxiyaan warada madaxweynaha Soomaaliland wuxuu sheegay dalkii aqoonsiga nasiya Gini in cadaadis lagu hayo oo ka dambeeyay qoladan jaarkanay warwar ma haysaan maanta waxa la ansixiyay sharciga saxaafadda marka saxaafaddu ma aqbali doontaa ma soo waaban doontaa war xildhibaan wuxuu yiri Facebook qalbi cadad maan war xildhibaan Jibriil Cabdirashiid Xaaji wuxuu yiri kalamaan hal igu casuumo waana ka aqbalnay waa noo casuumaya xildhibaane laga bilaabo saacadan xubin baa tahay warnimiya war ma haytaan gudoomiyiga kan maday mursal oo ka kalsoonay iyo madaxweynaha kan lafta gareen may baroogana gobolka leeyahay hudur mayna meelaska abaabulo hayana dagaal ka hurayo agagaarkaas walaagi war gudoomiyaha madaxweynaha waxa laga sugay aw masuur ee mageeya meesha waraal Sayid Axmed Madoobe ma ku qoos qaad ragii saaxiibadiisa ma wali waa soo taagan yahay awowga la naar eega wad eeditas mugan waa macaade ma musafuraaye meel dheer ma aadaye kursigay ma dhaafaye mashquula ihaaye yari war haysta Soomaaliga igu soo celiya please war kooxda ma sheexday naga aamusa kalamaan ku soo koobinta ayaanan sii badin yaa goo ku yiri naga taga tubtoos dan qaade